dalali madutai deegaanka dabiibadu tahay deegaanka dabiibadu tahay dowladnimo jir dowladnimo joog dowladnimo jir dowladnimo joog daacadi ayadoo laga duulayo fikradaha kore dawladdeenu maanta waxay u baahan tahay taageero bulsho si aan u adkayno dhardhaaradeena liita dawladnimadu waa hayin ay hogaamintiisu ku xiran tahay hadba qaabka ay bulshadaas u fikirto oo haddii bulshadeenu u fikirto qaabka togan dawladnimadeedu way sare maraysaa haddii ay bulshadeenu u fikirto qaabka toban dawladnimadeedu way naaqusaysaa dawladnimadu waa astaan kala socda dadyowga muwaadiniintana u yeesha calan ciid iyo xuduud u gaar ah dawladnimadu waxay abuurtaa hanaan waxbarasho dhaqaale siyaasadeed amni iyo caafimaad kaasoo sare u qaadaya sharafta waddanku leeyahay ma dareensan tahay muwaadin in maanta maqan tahay kaalintaadii fadlan dhankaaga ka haaneed si dawladdeenu u noqoto mid geegsanta oo dhammaanteenna wada deeqda fikirka bulshada ficilka hoggaanka iyo shuruucaha dal kasta waa aasaaska dawladnimada waana dhardhaarada bila magaca dawladnimada haddii midkood uu liicana waxaa wiiqmaya dawladnimadii dawladnimadu waa dal leh dad cayiman caalamkuna aqoonsan yahay lehna shuruuc iyo kala dambayn dawladnimadu waa heshiis bulsho waa mas'uuliyad wadareed ku salaysan isfahan iyo kala dambeyn dawladnimadu waa astaan ay quruubuhu wada fiirsadaan waana hilinka kala qaybsha caalamka isla markaana kala saara bulshooyinka dunida dawladnimadu waa heshiis bulsho waa mas'uuliyad wadareed isla guddoon iyo isfahan ku salaysan nabadda tiirbaadu tahay dowladnimo jir dowladnimo joog dowladnimo jir dowladnimo joog daacadi